kulanti wacan saaxiibayaal dhamaantiinba barnaamij wareedkaygan qodobada ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya banaanbaxyo waaweyn oo maalintii labaad si xiriir ah kaga soconaya dalka Mareykanka kuwaasi oo lagu taageerayo dawladda Ethiopia. banaanbaxyadaasi waxaa lagu dalbanayaa in la sii dayo maxaabiista Oromada ee u xidhan dawladda Ethiopia. saaxiibayaal waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay banaanbaxyadaasi oo si xiriir kaga soconayo gobolada dhaca dawladda Mareykanka. sidoo kale golaha amniga qaranka Ethiopia ayaa waxay gebi ahaanba ka hor yimaadeen in la joojiyo dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia. sidoo kale qurba joogta qowmiyadda Oromada ee Tigreega ayaa banaanbaxyo xoogan waxa ay ka dhigayaan dalalka caalamka gaar ahaan dalalka Mareykanka iyo sidoo kale Australia oo ay ku dalbanayaan in marka dagaalada Ethiopia ka soconayo gebi ahaantoodba la joojiyo. sidoo kalena nabadda lagu dadaalo dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia waxay saameyn xun ku yeesheen nolosha dadka ku nool deegaanadaasi iyagoo xaalad xun wajahaya. saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay xaaladahaas ayaan idin haynaa. soo dhawaada idin halkan oo barta YouTube ku leenahay Baniga Production aynu ku bilownay. saaxiibayaal waxaan idinka codsaynaa subscribe inoo saartaan muuqaalkan la share dhadaan qaybta hoose comment-ga aragtidiina anigu la wadaagtaan. waxaan ku bilaabayaa waxaa qabsoomay kala fadhigii labaad ee golaha wasiirada Ethiopia. golaha wasiirada ayaana waxay yeesheen kala fadhigoodii labaad ee caadiga ahaa waxayna kaga doodeen qobiyo qoraalka lagu dhisay guddiga wadatashiga qaranka Ethiopia sida lagu ogsoon yahay. arrimaha qaranka ay xukuumaddu ballan qaaday markii la doortay doorashadii lixaad ee dalka waxaa kamid ah inay ka shaqeyn doonto tala qaran iyo inta la guud oo arrimaha qaranka ah iyadoo loo marayo wadatashi qaran oo loo dhan yahay. sidaas darteed waxaa golaha wasiirada loo gudbiyay qoraal qabi ah oo ku saabsan saameynta guddiga wadatashiga qaranka Ethiopia si ay u ansixiyaan. golahu markii uu ka dooday hindisa sharciyeedka qabi qoraalka waxa uu go'aansaday in loo gudbiyo golaha shacabka si ay u ansixiyaan. saaxiibayaal dhinaca kalena dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia waxay saameyn xun ku yeesheen nolosha dadkii ku noolaa deegaanadaasi iyagoo xaalad xun wajahaya xilligan. deegaano ku yaala inta u dhaxaysa Dansha iyo mid sidoo kale halka lagu magacaabo May Daily ayaa sidaasi waxay u burbureen muuqaal laga soo duubay ayana waxay muujinayaan deegaanadaasi oo burburay isla markaana kaliya ay ku soo hareen jiingado qombash ah oo u muuqda inay si dhamaanayaan sidoo kalena daxaliisanaya ayadoo dadkii gebi ahaanba iskaga carareen deegaanadaasi. dugaagana xitaa oo iskaga cararayo waxa kaliya oo ku noolna ay yihiin dugaag kooban oo duurjoog ah oo qolyihii ama guriyihii dadka shacabka ah oo deganaa oo qurquruxda badnaa iskaga dhaxaaraya iyadoo dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga dalka Ethiopia midkoodna midka kale uu ku eedeynayo burburka iyo khasaaraha colaadaha Ethiopia ka soconaya. qurba joogta qowmiyadda Oromada iyo Tigreega ayaa banaanbaxyo ka wada dalalka caalamka gaar ahaan Mareykanka. banaanbaxyadan banaanbaxayaashu waxay sheegeen inay kaga soo horjeedaan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. dhanka kale bayaan ka soo baxay waa markaa banaanbax lagu taageerayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu ka socdaa dalalka Midowga Yurub iyo sidoo kale Mareykanka. dadkan ayaa waxay sheegayaan in Abiy Ahmed dadka taageersan Abiy Ahmed ayaa waxay sheegayaan inuu yahay geesi dadkiisa u naxaya sidoo kalena u dagaalamayo dalkiisa xorriyadiisa halka dadka kalena ay ku tilmaamayaan mid dadka Ethiopia dhibaataynayo sidoo kalena dalkaasi burburinaya. golaha amniga qaranka Ethiopia kulan ay isugu yimaadeen waxaa looga hadlay amniga guud iyo xasiloonida dalka waxayna goluhu sheegeen inay go'aano ka soo saari doonaan xaaladda dalka iyo jihooyinka xiga ee arrimaha amniga. sidaasina waxay u muuqdaa in dagaalada waqooyiga dalka Ethiopia ka soconayo ay sii xoogeysan doonaan maadaama golaha amniga qaranka Ethiopia ay arintaasi gaashaanka ku dhifteen in dagaalada dalka Ethiopia ka soconaya la istaajiyo. banaanbaxyadii ka dhacay Mareykanka jaaliyadda Oromada ee ku nool Mareykanka ayaa banaanbaxa ay soo qaban qaabiyeen waxa ay ku dalbadeen in la sii daayo maxaabiista Oromada ee u xidhan dawladda federaalka ah ee Ethiopia. banaanbaxa dawladda dhexe ee Ethiopia lagu taageerayo ayana waxa uu marar badan ka dhacay dawladda Mareykanka oo taageero rasmi ah aanan ka heleynin Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ay ugu baaqeen inuu dagaalada joojiyo maadaama ay u aqoonsan yihiin dagaal ooge. horeyna waxa uu ugu guuleystay Abiy Ahmed bilad nabadda oo lagu magacaabo Nobel Peace Prize taas oo tilmaamaysa in Abiy Ahmed uu markaa kaalin muhiim ah ku lahaa dalalka geeska Afrika dhaca si gaar ah dalka Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia oo uu heshiis dhex dhigay kadib in muddo ah oo ay wada dagaalamayeen. waxayna u muuqataa in Abiy Ahmed xilligan shahaadadii ama sidoo kale biladii hore loo siiyay ahayd Nobel Peace Prize bilada nabadda caalamka oo sanadii 2019 ku guuleystay ay haatan markaa uu dib dambe kaga xaaray oo uu arintaasi ku falaaday. saaxiibayaal Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Mr Abiy Ahmed ayaa oo shir gudoominayay shirka golaha amniga ee Ethiopia ayaa waxa uu shirkaasi kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay dagaalada dalka Ethiopia asaga oo sidoo kale ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyay oo hogaamiyay. waxa uu sheegay in hogaaminta dagaalku ay siisay khibrad
oo ka soo kororsaday furimaha hore ee dagaalka oo muddo ugu dambeysay waxa uu sheegay inuu markaa ballan qaadayo inuu sii hogaamin doono dagaalada oo uusan halka uga soo nasan doonin mar walbana wixii warar ah markaa wixii dagaalka ku soo kordho oo caqabad ah uu loo soo wadaagi doono golaha amniga Ethiopia waxa uu sheegay in hogaamintiisa dagaalku ay ka dhigneed guul u soo hoyatay guud ahaanba shacabka ku dhaqan deegaanada Ethiopia waxa uuna sidoo kale hadalkiisa sii raaciyay in golaha amniga Ethiopia ay tahay waajibaad isla markaana ay waajibaad ka saaran yahay inay aadaan furimaha hore ee dagaalka ayagoo u dhiirigelinayo ciidanka isla markaana wixii khibrad ah oo dagaalada ay u leeyihiin marka furimaha hore ee dagaalada ugu sheegaya ciidanka federaalka Ethiopia oo ku tilmaamay geesiyaal soo majeystayaal ah sidoo kale TPLF ayaa waxa ay sheegeen inay yaraadeen dagaaladii xawliga ahaa ee ciidanka federaalka Ethiopia ay ku soo qaadayeen deegaanadooda waa magaalooyinka ay ku sugan yihiin tan iyo markii Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo iskaga baxay furimaha hore ee dagaalka asagoo dib ugu laabtay xafiiskiisa waxa ay sheegeen in Abiy Ahmed uu istusus ka ahaa dagaalkani balse uusan daacad ka ahayn sidaas darteedna uu lugoynayo ama uu markaa ballantii kaga baxay ciidanka federaalka Ethiopia oo furimaha hore ee dagaalka kaga dhuuntay isla markaana ay gibi ahaan baabi'i doonaan ciidanka federaalka Ethiopia asgarta u dagaalamayso oo daacad u ah Abiy Ahmed TPLF ayaa waxay baaq u direen ciidanka waxayna sheegeen ama ay ugu baaqeen in loo adeegsan la dagaalanka walaalahooda iyo sidoo kale burburinta dalkooda oo ay ku sheegeen in ciidanka federaalka Ethiopia ay yihiin manaxayaal burburinaya sidoo kalena dhibaatooyin baan u geysanaya shacabka oo xitaa aanan kala aqoonin cidda shacabka ah iyo sidoo kale cidda ciidanka ah oo u dagaalamaysa TPLF arintaasi waxa beeniyay dowladda federaalka Ethiopia waxa ayna ku tilmaameen mid sal iyo raad toona aan lahayn oo ay dhoobeen markaa Tigreega saraakiisha ugu sareyso waxayna ballan qaadeen in shacabka aysan dhibaatiin doonin oo ay shacabka yihiin kuwa u dagaalamaya xorriyadooda sidaas daraadeed aan laga yaabinba in dhibaato gaarsiiyaan dhinaca kale dawladaha caalamka ayaa waxa ay ka digayaan dhibaatada sii baahaysa ee ka taagan dalalka Ethiopia waxaana wararkii ugu dambeeyay ee caalamka uu soo saaray ay ahaayeen in Ethiopia ay ugu baaqayeen in dagaalada joojiyaan Abiy Ahmed loogu baaqay in uu markaa uusan dib dambe ugu laaban furimaha dagaalada sida darteedna uu ciidankiisa ugu baaqo inay qoryaha dhigaan oo ay TPLF wada hadal la galaan sidoo kalena xabad joojin lagu dhawaaqo balse Abiy Ahmed waxa uu muuqdaa inuu arintaasi gaashaanka ku dhifanayo oo uu barataarayo waxa uu sheegay Abiy Ahmed in dalalka reer galbeedka si gaar ah ay yihiin kuwa cadow ku ah Ethiopia oo been abuur gudbinayo sidoo kale warbaahinta reer galbeedka ayuu ku cadaadiyay inay xoga been baahinayaan sida darteed hadii aysan ka digtoonaan aysan gabi ahaanba ka shaqeyn doonin dalka Ethiopia oo qaarkood ay xarumo ku leeyihiin afayeenka kooxda TPLF ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin wada hadallo bilaa shuruud ah oo saamaxaya ama suurto gelinaya inay nabad ku noolaadaan shacabka qowmiyadda Tigreega waxaan cadeynaynaa inaan aqbalayno xal kasta oo xaqiijinaya jiritaanka shacabka Tigreeg waliba si buuxda ma aaminsanin qof xasuuq geystay inuu nabad diyaar u yahay wuxuu sii wadayaa un xasuuqa si isku badbaadiyo balse waxaan leenahay wax waliba waa ay dhamaadeen Tigreeguna waxa uu diyaar u yahay wada hadal haddii Abiy Ahmed maamulkiisa uu diyaar u yahay wada hadal ha inala wada hadlo ha inala fadhiisto si shacabkaynu ay nolol fiican ugu noolaadaan sidoo kalena wax allaala wixii aan dawladda kaga baahanahay oo xafiisyada dawladda naga galana waxaan cusaynaynaa ayuu yiri in la siiyo waxay u muuqdaan Tigreegu inay niyad xoogan la sii kulmayaan maadaama dagaalada muddooyinkii ugu dambeeyay laga adkaanay isla markaana magaalooyin waaweyn oo Ethiopia ciidankeeda ay hore uga qabsadeen toddobaadkan gudihiisa lagala wareegay ciidanka federaalka ah ee Ethiopia ayaa waxa ay markaa sheegeen inaysan joojin doonin dagaalada isla markaana ay sii socon doonaan duulaankooda xoogan ay sii wadi doonaan shacabka Tigreega ay waxay ugu baaqeen inay taageeraan dawladda isla markaana ay soo dhiibaan cid waliba oo go'aankaasi ka laabatana ay soo dhaweynayaan sidaas waxay sheegeen in la baacsanayo ama si gaar ah looga markaa aad gudanayo dambiyadii ay galeen afayeenka iyo sidoo kale saraakiisha ugu sareyso ee dalka Ethiopia waxayna hadalkooda ku sii dareen in ilaa iyo magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega inta ay ka gaarayaan ay sii socon doonaan Tigreega ayaa waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyay ku awood roonaa dagaalada asagoo magaalooyin dhowr ah ciidanka federaalka kala wareegay isla markaana ku sii siqay magaalada caasimadda ah Ethiopia ee Addis Ababa balse arintaasi waa ay burburtay waxaana ka hor yimid ciidanka federaalka ah ee Ethiopia oo dib u soo xoogeysay kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Mr Abiy Ahmed uu hogaamiyay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia si gaar ah furimaha dagaalada ee deegaanada canfarta isla markaana guulo waaweyn ay gaareen ciidankiisu Abiy Ahmed oo furimaha hore ee dagaalada muddo ku sugnaa ayaa waxa uu sheegay in ciidankiisu ay guulo gaareen isla markaana wajiga koobaad ee dagaalada dalka Ethiopia ka soconayo ay soo gabagabeeyeen
أبي أحمد ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dagaalka ay sii hogaamin doonaan ama wajiga labaad uu sii hogaamin doonaan saraakiisha ciidanka militariga ee Ethiopia oo ah geesiyaal soo majeystayaal ah Tigreegana 10 fiican u dhigay sidoo kale Tigreega oo magaalooyinka ay kamid yihiin Komboljo iyo sidoo kale Disay iyo magaalooyin kale lagala wareegay oo ay awood ku lahaayeen muddooyinkii dambana ay haysteen ayaa waxay la kulmeen jab xoogan ayaga oo markaa baraha bulshada ku soo qoraya inay diyaar u yihiin wada hadalo isla markaana ay xasuuqayaan dawladda federaalka Ethiopia ciidankeeda saaxiibayaal waxaa daawanaysan wali barnaamij wareedka ay ku saabsan xaaladaha dalka Ethiopia Bangiga Production waa inaga la socotaan Bangiga ganacsiga dawladda federaalka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay inay diyaariyeen lacag ka badan 100 milyan oo bir lacagtaasi oo la deymin doono amaahin doono ganacsatada iyo warshadaha kuwa howlan wax soo saarka kala duwan ee dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Ethiopia sida uu sheegay bangiga ganacsatada dawladda deegaanka Soomaalida ayaana waxay adeega amaahda lacagta uu bixinayo bangiga ganacsiga Ethiopia waxa ay ugu jiraan fursado dahabi ah waxayna sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan dhinaca kale saraakiisha Tigreega ee hogaaminaysa dagaalka soconayo waqooyiga dalka Ethiopia ayaa waxa ay ku jiraan marka Ethiopia ciidankeeda iyo sidoo kale Tigreega ay ku wada jiraan saraakiisha dhanka Tigreega hogaaminaysa waxay sheegeen inay farsamooyin kala duwan adeegsan doonaan muddooyin gaaban ay ku soo abtiri doonaan cadawga cimrigoodu sida ay sheegeen uu kooban yahay oo ah marka ciidanka federaalka Ethiopia kuwa marka la soo qalday oo loo dhiibay aragtiyo qaldan oo ah inay dalkooda iyo dadkooda ay burburiyaan sida darteedna aysan gabagabadan isla sii gaarinaa guud ahaan waana inta barnaamij wareedka iyagu ku saabsan xaaladaha dalka Ethiopia waxaan idileenaa saaxiibayaal soo dhawaada halka Bangiga Production waxaan idinka codsanaynaa subscribe inoo saartaan muuqaalkan like share dhahdaan qaybta hoose comment-gana aragtidiina idinagu la wadaagtaan waa maasantiin saaxiibayaal wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.